saaka waxaan jeclahay inaan erey qura idin idhaahdo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh walaalaha runtii kusoo dhawaada macalimu janaal saa soo aragteen sheekheena weyn sheekh mustafa dardaarankiisa ugu dambeeya maanta maxaa waay waxaa fiican culimmada in wax laga faa'iido runtii hadda ka hore waxaa inii sheegan u dhahay culimmada markaan ka hadlaynay sheekh usuli dadka ku xadgudbay oo codkiis jarjaray macnaha haddii culimo jiri lahayn ummadda maanta si u jirto runtii ma la arkeen waayo culimada waxay ku jiraan booskii ambiyada marka in laga dhawaado wax laga faa'iideysto cilmi laga qaato waa wax aad u fiican waxay u fiican tahay adiga adduunyadaada iyo aakhirada labadaba marka runtii waxaa la dhahaa qofka sheekha markuu qofka ula saaxiibo qof caamil tusaale ahaan hadduu sheekh la saaxiibo sheekha wuxuu kusoo xasuusinay mar walba waxa ugu yara ka faa'iidi karta waxay tahay inuu ku xasuusiyo waqtigii salaada waayo qofka markuu ilaahay ku xiran uu tukanayo waqti salaada marka la gaaro ku xasuusinay wuxuu macnaha asaa tukanayo marka arrinta qofka tukanaya adina waa tukanaysaa markaas oo wax aakhirada u fiican marka culimmadu waxay nagu jiraan booska ambeysa inii sheegay in wax laga faa'iideysto la dhegeysto la ixtiraamo aan lagu xadgudbin runtii aan la aflagaadeynin oo wax aad u fiican waa ogahay in culimmada la caynaynin lagu xadgudbeynin laakiin dadka qaar iska jiro hata sheekh usul waxa ku dhacay camal wax fiican ma ahayn walow dadka qaar kaftan iyo shactire iyo dadka qusli ay ka ahayd laakiin kaftankaas maalinta dambeys wuu kulusi tagaa in la kaftamo oo iska fiican tahay la iska qaraxaysto laakiin de wixii waxaa fiican qofka aad la kaftamaysid inaad mar walba fiirisid qof daad ah oo sheekh ah oo haddana waxaa ku sameynaysa raalli ka ahayn wax oo aad dembi u ah marka topiga hadda hore ka soo hadalnay ma gelayno muhiimadda maanta aan inii waday waxay tahay wax adi aakhirada dan u ah adduunyada dan u ah anigana aakhiradeeda dan u ah adduunyada dan u ah macnaha adduunkan waa runtii qofka intuu jooga iska gaaban marka waxaa fiican inuu uga faa'iideysto qaab wanaagsan amankii uu qaab xun uga faa'iideysan lahaa amankii aad dadka wax xun u gudbin lahayd isku day inaad wax fiican u gudbisid ama aad ka aamustid labadaas wax ka dhexay ma laha laakiin hadda sheekha camal wuxuu ka hadlaya waxay tahay wax aakhiradaadii adduunyada labadu ku anfacaya waa cilmiga soo nabigeena sal allahu alay wasallam inoo sheegay cilmiga barashadiisa qof bin aadanka ma ka dhergo asoo u baahan adduunka laga wadaya waayo weli ma arkay qof dhahayo cilmigaan bartee waan ka dhergay cilmi u baahan sheekha caalimka ugu weyn sheekh umar hadduu yahay weli cilmi barnaa kitaab barnaa oo raacanaya waayo cilmiga waa wax soconaya maanta kulli qof wax buu faa'iideysanay haddii noqon mas'ale diini ah haddii noqon lahayd xadiis waxan buu qof maanta kulli faa'iidi marka cilmiga ma laga dhergo mana dhammaado soo nabigeena sal allahu alay wasallam noo sheegay marka sheekha dardaarankiisna waxaa waayo sifo aad u liibaantid aakhiriya adduun sifo aakhirada u ilaashtid adduunyada u ilaashtid waa inay cilmiga barataa cilmigu ku anfici tusaale ahaan cilmiga baratay cilmiga aad baratay wuxuu kuu anfacaa waxyaaba badan waxaa laga yaabaa adoo yar in cilmi waalidkaada uu kusoo baray markaa weynaatid waalidkaada anfacaysa oo duceyni markaad tugutid mar walba oo wax wanaag aad samaysid oo ajir ah qof kale cilmi sii bartid waalidkaada ajira u socdaa adina ajira ku socdaa waxaa kaloo ka faa'iideysaa ubadkii ilaahay uu ku siiyey haddaa cilmi dhashid cilmigaa baraysaa way ka faa'iidayaan laakiin haddaad maadi iyo diin labada lagugu fakanaynin faa'iido ma leedi marka inta badanna dee dadka runtii qof bin aadanka hadduu maadi yaqaano waa inta badan uu ka duwan yahay qofka aan labadu aqaanin ugu dhaamaa qofka hadduu diintii aqaanana wuxuu kaba sii fiicanba hadduu labada isu darsadana kaba sii fiican 100% marka inta badan waxaa fiican hadda sheekh mustafa culimmadu wuxuu ugu duwan inta badan waxaa waa sheekh diini iyo maadi labadaba aqaano maasha allah wax aad u fiican wejina culum badan labada aqaano laakiin hadda sheekheeni weynaa allah naxariisto sheekh Umar Faaruq wuxuu ahaa sheekh inta badan mas'alo kastoo la weydiiyo runtii quraanka kasoo dhex saaro way yar tahay in culmo noocaas la helo waa maasha allah wax aad u weyn oo qof cilmi ku takhasusay macnaha marka wax la weydiiyo asaga wixiis waxay ahaan qaala allah waa quraanka muxuu dhahay bis wax kale ma fiirin jirin inta badan saas u badnaa culimada kaleetan inta badan waxay culimadu way kala duwan yihiin laakiin hadda sheekh mustafa marka la fiiriyo inta badan waxaa lagu aqaanaa inuu yahay sheekh
khibrad u leh ku takhasusay dhanka maadiga ah dhanka diinigan boqolkiiba boqol ka dhamaystiran marka labadu isku darsaday qof noocaas camal ah maasha allah waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed Allah u daayo dhammaanteen Allah noo daayo way yar tahay marka waxaa fiican qofka noocaas ah marka la haysto in laga faa'iideysto gaar ahaan dadka hadda ag joogo waxaan u maleeyaa sheekha inuu Hargeysa joogo marka insha allah asxaabta waxaa inii waday wacdigaas oo gaaban oo adiga aakhirada anfacayo adduunyadana ku anfacayo haddaad dhegeysatidna runtii oo laga yaabo in runtii aad dhegeystid haddaad dhegeystidna waxaan rajeynaya in aad waxa ka faa'iidi doontid runtii ay noqon doona wax beri ku anfaco hadday noqon lahayd aakhire adduun labado aanan qaadan doontid insha allah ummaddeena inta badan waxa dib u riday haddaan Soomaali nahay waa maxaa la dhihi jiray aqoontii waxaa moodaa inay sii yaraan sii go'ayso hadduu ogahay in aqoonta inta badan Soomaali iska noqotay business jaamacadihii ay business noqdeen ganacsi noqdeen ka wada waxbarasho ahaan uusan jirin base waxbarasho tusaalahaan hadda wadamadan aan joogno Yurub gaar ahaan Sweden waxay leedahay waxbarasho aasaasi ah oo ilmaha laga soo dhisayo dhanka maadiga kii diinta khilaaf ayada waa alo sahal waayo cuniga hadduu tukanayo in acdeena inta koos uu garanayo waa qof quraanka dhimay labadii meeshan marka diintii maqan laakiin maadi ahaan qofka uu helaa qofka hadduu maadi helo uu diinta aasaasiga bartaan marka dhoweyna qofka xalay waa inuu iskeen waayo wuxuu haystaa wuxuu isku celin karo marka waxaan dhihi lahaa on runtii waxbarashada ha lagu dadaalo maadiga iyo diiniga labadaba ha lagu dadaalo sheekh wuxuu dhahay haddaad rabtid inaad liibanto aakhiri adduun labadaba waa inaa wax barataa oo cilmi barataa cilmiga uu ku anfici marka cilmiga ha lagu dadaalo cilmigana dee runtii hadda sidoo hore ma ahan adduunka wax kasta uu horumaray wax walba internet ku jira hadda YouTube ka aragteen inta badan waxaan ku arkay oo ininka ogtihiin muxaadaro iyo waxa isku fiirisaa iyo heesaha qaar marka isku fiirisid heesaha ayaa daawasho badan muxaadarada yar inta badan marka inkastoo hadda ummadda ay soo fiicnaanayso markaas u fiiris laakiin sidoo hore hadda ma ahan maasha allah wax fiican waayo marka amanka wax xun munkar ah ku jiri lahayd dadka heesaha qaadan iska xanaaqeen macnaha wax wanaagsan uma sheegayna qof walba wixii uu ku jiro oo asaga la saxsan say u tahay laakiin aniga wixii wanaagsan uma sheegayna marka ana hadda kor waxa u joogay magaalada la dhaho Malmo waa caasimadda saddexaad ee Sweden cid garanaysa sheekh la dhaho magaciisa Sheekh Axmed Aweys waxa u maleeyaa wuxuu la dhashay sheekhaas Xasan Dahir Aweys aa garanaysaan qof kasta aqaano in siyaasadda xiisaysa inta ka dhamaantood xiisaysa ayuu la dhashay marka Norway ayuu nooga imaaday saa u maleynaya sheekha Malmo nooga imaaday wallahi waxaan xasuustaa sheekha meeshuu muxaadarada ku dhigayay Malmo rusigood cid taqaano 2012 meelaas ay aadaan 2012 meelaas ay maxaa sanadkan xasuusto waqti samar camal ay galab ah sheekha imaana la dhahay lokaalka meesha oo hoolka camal oo sheekha muxaadarada ku qabanaya agteeda laba fanaan magaca haddaan sheegay in xanaaq la kacsan ay show ku qaban rabo habeenkii group fara badan show inta la gaaray muxaadarada waa tukaday maasha horta waa la tukaday maasha allah qof hadduu tukado shintiis waqti fiican maasha allah laakiin waxa ay yahay waxay tahay sheekha muxaadarada la dhageysanay sheekha muxaadarada si loo dhageysanay waqti show marka la gaaray laba fanaan dhalinyaro oo hadda maasha allah shidan ay meesha imaadeen labadooda haddii arkaa inay xasuustaan laga yaabaa marka showga la gaaray ciyaalka xaafadda waa goosteen sheekha afar qibla ku soo hartay bas maxaa la soo gabagabay marka waxaan ka wada waxay tahay message-ka runtii oo aan rabo inaan gudbiyo waxay wax kale ma ahan in diinta lagu dadaalo cilmiga la barto diiniyan iyo maadi labadaba qof bin aadanku xoog saaro intuu dhalan yahay intuu xoog leeyahay inta maskaxdiisa shaqaynayso waqtigan hadda la haysto ma la haysan doono beri marka ummadda Soomaaliyeed runtii sheekha dalkiis aan qaadano sheekha aan dhageysan doonaa asxaabta waa inii soo gudbin doonaa waana soo aragteen clip yar oo sheekh ku saabsan barnaamijka haddaa ka heshay runtii like inoo saar barnaamijka hadday tahay markuu hore jalanka aad soo booqatayna subscribe inoo saar sifo barnaamijyada kale oo xiisaha leh aad la socotid inta nagu soo biirtan asxaabtana waa mahadsantihiin inta kaleetan runtii waa inay soo dhaweynayna saaka waxaan jeclahay inaan erey qura idin idhaahdo oo ah haddaa adduun doonaysaan adduunyana facalaykum bilcilm waxbarta haddaa aakhiro doonaysaan inaad guulaysataanna facalaykum bilcilm
labadaba aqoon baa wax ka tara